وعساك سبحان هوري كسو دقي قرونك عالمي هيثرو ايربورت مقادا لندن وسيرك مدحتويدا سومالان مدانا حرسي علي حاج حسن oo isagu haatan ka soo kacay wadankii magaalada Hargeysa waxa halkan u yimid hawlo isugu jira kuwa private oo u gaar isaga iyo kuwa ku salaysan arrimihii wadooyinka iyo fundraising iyo dhaqaale ururin iyo abaabul iyo kicin ku saabsan sidii wadooyinkii Soomaaliland loo horumarin lahaa gaar ahaan wadada dheer ee isku xidha magaalooyinka Burco iyo Carigaabo hadaba wasiirku markuu ka soo degay madaarka ayaanu nasiib u yeelno halka kula kulano سعادة الوزير مركو قرصة الحمد لله على سلامتك بل أديكو سكوا مركو ورقم سفر كاغو محقوق صابسنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إلهي وحنكم هذين يا إن نبض قبل كسو قاري هلكن دمانتي نيجا هرتمي هلكا يقولتي منا صحافة دي مسؤولين تو سفيركو هرينا وأنا دي كم هاد علينا يا هذه أدبو مهتنتهين سفر كيجو سيدا عرب كل فتي وحوها أمان هراو قور رمي وحوها سفر كيجو laba shay mid waa mid gaar ah oo jaamacadan imtixaan ka galiyay oo York University leeyahay tagay insha Allah ta'ala laga yaabaa inaan 12 cisho ama laba week meelaha ku qaato waqti talabaadna waxaan ku tala galay waqtigeyga fasaxa ee aan joogo aan hawsha jaamacada u joogo inaan gudigii ka faa'iideyno waqtiga gudigii ay yimaadaan kadibna aanu fundraising ka sameeyno UK haddii gudiga ama anigu ay suurtagal noqoto in Yurub loo gudbana Yurub in loo gudbo oo special aniga wax laga yaabaa in waqtigu aad igu xidhiidhiyay laakiin gudigu in qaarkood u gudbaan Yurub oo ay waxa way farnaysiga saasoo kale sii wadaan waanu kala qaybinay gudiga wadooyinka u ururinaya qaadhanka yani wadooyinka waxaan u kala qaybinay qaar Yurub imanayo oo UK ugu soo horeynaya oo aniga iga dambeyn doona iyo qaar u baxaya Sacuudiga labada qolo waxaan qorsheynay qolana inay 10ka bisha soo baxaan halka yimaadaan ama agagaarkeeda qolada kale Caraba u baxaysaana inay 15ka bisha ay u baxdo Carabaha marka qorshaha aanu qaadhanka ugu ururino wadooyinka oo ay tahay wadada ugu muhiimsan wadada Carigaabo wadooyinkana qof walba hadaanu Carigaabo marka awoodeen ama commitment ku jira wadooyinka kale dalka oo dhan way suuqaya mid wada walba qofku uu ku bixin karaa wixii qaadhanaha uu hayo muhiimadana isku muhiimad bay noo leeyihiin laakiin dalkay u kala priority-ga u kala muhiimad badan yihiin ama waxay u kala horeeyaan xagga muhiimadda iyo importance-ga u kala horeeyaan wadada Carigaabo oo dalkii badh inaga go'an yahay baanu emphasize ka saarayna commitment-na aanu bixinay hore u bixinay inaan ugu yaraan 100 kilomitir dawladahan dhisayno bulshadana u agaasimayno inay ka qayb qaadato marka taasaan u soconaa taasa qorshahayagu yahay dhammaanna waxaan leeyahay oo bulshada ku wacyi gelinaya haday tahay wadooyinka haday tahay horumarka dalka ka wada qayb qaata qof waliba ka qayb qaato way fiican tahay waanan aad iyo aad baan ugu wacyi gelinaya maalinba in shay la isugu tago oo priority number 1 laga dhigto iyadan kuwa kale la dayacayn in maalinba shay la isugu tago si aan awoodeenu u daciifin laakiin maaha in waxa kale oo dhan la dayacayo oo laga tagayo commitment-kii aanu wadooyinka kale siinaynay ama wax dhaqaale aanu siinaynay waxa weeye wadooyinka kale sidiisii buu soconaya wada walba taageeradeedii iyo qarashkeedii iyo qorshaheedii sidii buu soconaya mana joojinayno haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nagu guuleeyo wadada Carigaabo waxa qorshahayagu yahay inaan wadooyinka road network dalka oo dhan waxa weeye isku xidhno waxaan rajaynayaa inay noqon doonto program ama qorshe Soomaaliland guul gaarsiiya aad baa mahadsantahay sidoo kale waxa dadka halka ku sugayay wasiirka madaxtooyada kamid ahaa dad badan oo madaxa oo ay ku jiraan xildhibaano sida xildhibaan Mubaarak Bidho oo ka soo kacay magaalada Birmingham kana mid ahaa dadkii goor hore iyagu yimi halkan garoonka Heathrow Airport iyadoo waqti hore diyaaradda soo caga dhigtay sidoo wasiirka oo isagu halkan ku soo dhaweeyay si kastaba haatee mudane xirsi cali xaaji xasan wasiirka madaxtooyada ayaa waxa uu si weyn dadku u soo dhaweeyeen dhagax dhigii wadada dheer ee isku xidha Burco iyo Carigaabo oo madaxweynuhu dhagax dhigay iyo sida ololaha ugu jiro inuu halkaasi wax weyn ka qabto iyadoo dhawaan uu safar kaga soo laabtay magaalada Carigaabo ee gobolka Sanaag haddana waa arrimaha halkan u yimid ka mid tahay inuu sii wado fundraising iyo lacag ururinta iyo waliba abaabulka sidii wadada Sanaag ee dheer ee Soomaaliland isku xidha ay u hirgelin lahayd Axmed Awil Ismaaciil Somsa TV Heathrow Airport London